بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواد برامج كارما هوينك oo toddobaadkiiba mar idinkaagi ma telefishinka STN xaruntiisa dhexe ku leh magaalada Nairobi barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa horumarka dumarka ay sameeyaan iyo waliba wax walba oo liid ku ah horumarka dumarka Soomaaliyeed dhanka kale waxaynu inta badan ka hadalnaa tacadiyada kala duwan ee la kulmaan dumarka barnaamijkana waxaynu ku soo martiqaadnaa hadba qofka run ahaantii ka hadli kara horumarka dumarka misna wax walba oo liid ku ah dumarka Soomaaliyeed barnaamijka waxa idin soo diyaarisay halkaan idin kala socotiisaan waa Nasra Maxamuud Dhicisa galabtana barnaamijka waxa marti igu ah Kaafiya Cabdi oo ah gabar da'yar oo hal abuur ah run ahaantii horumarna ka sameysay bulshada run ahaantii ganacsi balaaran ku jirto inta badanna aad dadka u hadal hayaan run ahaantii Kaafiya ayaan ka wareysan doonaa waxyaabahaasi Kaafiya waxay karisaa misna ay gadaa aan iraahdo shaaha run ahaantii halkaas oo ay dadyo kala duwan ay ugu xiran yihiin sida quruxda badan ee barnaamijka inooga marti nooga noqotay run ahaantii ay barnaamijka inuu ku casuunay inooga imaadaan oo ugu mahad celinayna aad oo mahadsantahay Kaafiya soo dhawo marka hore waa ku dhawahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed baa salaamaya heeto ku mahadsantahay quruxdan iyo heeto ka soo qayb galkan idaacada ay soo wahagaag aad oo mahadsantahay Kaafiya Cabdi sida caadiga barnaamijka intaynu su'aalaha guda galin ka hore waxaan ka codsanayaa in yar oo taariikhdaada oo kooban halka aad ku dhalatay maada waxbarashadaada oo kooban iyo heerka aad maanta taagan tahay intaba intaan su'aalaha guda galin waxaa ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan Wardigley ku dhashay Nairobi waxaa imaaday adiga waxaa jooga adin dhowr sano waarida ay keenay marka waarida ay keenay halkaan oo waxay ahayd meeshana maamo habirteeya aan la joogaa wahagaag aad oo mahadsantahay Kaafiya soo dhawo mar kale ayaan ku leeyahay waan kaaga mahad celinahay sida quruxda badan aad barnaamijka aad igala qayb qaadanaysa waxa tahay gabar da'yar oo hal abuur ah run ahaantii goormee ayay kugu dhalatay hawshan isha karinta horta aniga waxa ahay qof guri joog ahay oo waarida guriga la joogi jiray waa cuni jiray waa cabi jiray hooyo habirtay hooyo waxa hooyooyinku way badin habirta waa hooyada labaad ayaa waxay karisaa maqaayada waxay ku leedahay shaa samanka Nairobi marka waxa dhacday in iyada xanuunsatay aniga shaqada ka bedelo shaqada sidaas uga bedeli jiray shaqadeeda waxay ahayd mar ayada u soo gali jirtay mar aniga u soo gali jiray markii dambe waxa jeclaystay in aniga shaqeeyo ayadana xoogaa ilaa waa qof waayeel ee guriga ay joogto marka waxaad leedahay sababaha ugu dhaliyo waxa weeye inaan waarid inuu ka soo hoos kaco si shaqo aado adina guriga joogto adoo dhalinyaro wax qaban karo oo ayada 100% ka firfircoon tahay waxa waaye wax fiican maaha maysan kula qurux badnaan wahagaag ilaa muddo intee la eg ayaad ku jirtaa hawshan ilaa muddo waxaan ku jiraa 2 sano aad 2 sano aan ka shaqeynooyaa aan hawshan gudaheeda ku jiraa oo shaaha aan kariyaa wahagaag aad oo mahadsantahay shaqada iyo shaqooyinkan kale ee teebaad leedahay way fududahay shaqooyinka kale marka si loo fiiriyo iyo shaqada shaah karinta ah markaad isbarbar dhigto midda is leedahay run ahaantii way ka fududahay tan ayda horta hore shaqooyin oo dhan ma fududo oo shaqo maanta laga shaqeynayo easy waa lama dhigi karo wax walba ee noqoto laakiin shaqada shaaha waa shaqo u baahan dulqaad sababtoo waxa arkaysaa dad waxa ku kala imaanaya dabeecadahooda aad u kala duwan hal tarmuus shaa ugu shubay wuxuu ku leeyahay tarmuuskan qabow waay kan ag fadhi wuxuu ku leeyahay kuleel waa intee ku karisay marka aad u dhib badan tahay shaqada shaaha saasay tahana waxa waaye quturiyowka ka soo galay oo dulqaadanay baho marka waa inaad dantaada iyo dabeecadaada muddo kale shayga dabeecada ko markaas soo galay aad oo dabeecad xumaay oo dabeecadeeda ma fiicneen laakiin markii aan gudaha shaaha soo galay dabeecado badan ay yeeshay qofka wuxuu yahan ku qaataa sababta ganacsigeyga basaas ay soo waa inaad dantaada ku fiirsataa wahagaag aad oo mahadsantahay meeqa saac ayaad shaqada soo gashaa waxaan soo galaa 1 saac subaxnimo waxa ka baxaa 4 saac habeenimo bal ka waran 1 saac oo subaxnimo magaalada waxay ila tahay inay cidla ay tahay oo dad imaan adigoo gabar ah bal ka waran sida ay kugu suurta gashay 1 saac subaxnimo inaad soo kacdid shaqada aad imaadid
kadibna 4 saac oo habeenimo handana habeen barkii oo magaalada hadda aynu joogno Nairobi ay tahay magaalo inta badan hadartan bada uu saaran yahay wala waqtiga inta aad sheegtay uu yahay marka laakiin bal waa laga yaabaa in dhibaato aad kala kulanto xilliga 4 saac dhibaato horta waa kala kulmaysaa oo adoo shaqadaada wato ayaa wuxuu ku xisaabsamayaa ninka shaaha cabay wuxuu ku xisaabsamayaa teemka oo ka bixi lahay meeshan isliyo sababtoo waqtiga bandowga ku imaanayo kuwa way kala tagayaan lacagta askar waa kuugu imaanaysa oo waxay ku leedahay teemka maxay tahay meeshaada waa ay u furan tahay laakiin markaas dhibki imaado xal looma waayo oo waa la xaliyaa dhinaca kale tooda oo aniga keligii meesha aan joogan waxa dhalinyaro badan ay la joogto oo i caawiso wiilasheena walaalaheeya oo iga taginba inta waqtiga 4 saac ilaa 5 saac guriga ay ka galeeno gurigeena waxay ahayd ila socdo oo ila joogo subaxii hurdada hadaa kala hadlana dhadhanka leedahay xataa waa ka warqabtaa boo cid walba wallahi hurdada subaxii markii laga kicinayo aad u dhadhan macaanta waxa saacita waliba marka adiga shaqo leedahay wallahi waxa moodaa shaytaanka inuu dhan kuugu sii yeelayo laakiin marka shaqo la'aad tahay hurdaba ka imaanayso waxa sugaysaa wax ka kicinayo mataqaanid laakiin subaxii hurdada ee wallahi dhadhan leedahay oo waa dhibaato hadana subaxii adoo soo kacay alasay ayaa waxa imaanaysa suuqiyo cidla oo adig kaliya ka joogtid ayada dulqaadkeeda u baahan tahay oo waxa hadda laga sheekay karo maan xanuunkeeda laakiin waxa lagu dhibtoorin lagu dheefsadaa baqli jiray marka waa inaad dhibaato aan umar leedahay sida aan u gaari lahaa horumarkii hadafkayga waa hagaag way adag tahay inaad shaqo noocan aad qabata adigoo ka shaqeynaya shaqo noocan waliba adigoo gabar bal ka waran dhibaato intee la eg ayaad kala kulantay inta aad ku guda jirtay walaha dhibaatooyin badan way leedahay oo qofa wuxuu ku leeyahay shaah marka u shubtid adoo ganacsigaaga wata shaah u shubay wuxuu ku dhahayaa abaa maxaan talentiga leedahay talentiga kalma soo bandhigtid okay marka talentigayga farkuma dhiina shaahan iga gada ku dhooya kuwa kale waxa ku dhahayaan abaa maxaane adiga maba lagugu talagalay shaahan meel kale lagugu talagalay wixii lagugu talagalay farkuma dhiina waqti shaah iga gada la baraya marka dhalinyaro waxa arkaysa qofa waxa arkaysa shaahi marka u keentid oo wuxuu ku dhahayaa ma wali xumoosida maxaa waay meesha la isku luxmaa jooga waxa gadan weeyaa marka dhibaatooyin badan way jirtaa oo dhinaca shacabka laakiin waxa arkaysa qof ku qaldaya qofka kale ku wanaajinaa oo ku dhahay abaay soo dhawo waxaan isii marka dhibaatooyin badan way iska jirtaa ceeshkeena ku jiro boo waa hagaag aad ma santahay marka inta badan shaaha waxaad u karisaa sida ay wada ogna waa inta badan 90% aan iraahda waa rag bal ka waran falcelinta aad kala kulanta rag adigoo gabar waad sheegtaa dartaan waad ka soo dhawaajis laakiin waxaad sheegtay oo kaliya customkii oo dhan bal gaar ahaan rag hadii aynu taaban horta rag farahan ilaahay isku sim umu abuurin horta rag isku mid maahan 100% dad xun way ku jiraan laakiin ma badna oo waa yar yihiin waxa arkaysaa wiilal oo u imaanayo inay adig ku dhibaan bis inuu asoo wada lacag 30 shilina ayuu rabaa inuu kugu dhibaateeyo uu ku imaanaya wuxuu ku leeyahay shaah ii keen shaah yaa u keenaysa maxaa way gacmahaaga sida u yaalaan maxaa maanta afaarihi koram iska soo ilooday wax aan loo dirsanin oo shaqadiisa ahayn ayuu kugu la hadlaaya darti hadii aad xumaan ugu bedeshid kastamkaaga kama mid noqonayo waa inaad waxay ahayd ka dhigtaa qofkii qof kastamkaaga oo wanaajisan asoo ku caynayo ayaa la qaysaa caydiisa waxa ka dhawaajisiba dulqaadka aad tiri kan shaqada galay aad ugu yaraan wallahi dulqaad ma lahayn dabeecad ma lahayn qof dhib badan ahay laakiin marka banaanka uu soo baxay waxaan ogaaday dabeecada shay qaali inay tahay wax walba kula qofku caynayo ayaa inta fiirisha shaah u shubaysaa ma laha jirin laakiin danta hadda ku badayso oo inta shaah u shubtaa waliba aboo macaan ugu sii jawaabaysaa waxa iigu yaab badnaa maalin roob da'aysan daladan ku hoos jirnaa anaga maqaayadeena ma aha maqaayad banaanka taalo dalada anigu ku hoos jirno wuxuu shaah nin ii dirsaday shaah ii keenoo dhahay shaah anoo keenayo sas intuu ii fiirshay wuxuu istaag su'aal ku weydiinaya hadda waa nin weyn oo aabaheeya dhalinyarada moogtahay qof dhalinyarada hadduu si qaldan kula hadlo weli dhalinyarnimo haystaa isleedahay laakiin qof markuu si qaldan kugula hadlo xogaa yar jirka ka gubanaysaa wuxuu dhahay shaaha ii keenta ma xumo laakiin uu yidhi adoo gabara jirkaaga ma luxmaayo sabab wallaahi ma iloobo
waa fiiriyey waxaan dhaha waxaa kusoo adkeeyey next week dambe insha allah waa soo jeedinaan dhaana shaah iyo cab wax kaloo baata ugu jawaabi karto ma lahan guriga imaaday wiilasha walaalaheeya u sheegay noogey itusi wejigiisa nacala wuxuu waxaan dhaha fiiriya laga soo gudbo waa laga soo tegay marka dhibaatooyin way leedahay dhinaca shaqada oo shaaha weliba wiilasha dhinacooda ma wada xumo wiil waxaa arkaysaa intaa shaah u keento ku dhahay abaay waa mahadsan tahay khayr allah ku siiyo marka waxaa waa isku mid maaha dhalinyarada waa run sida hore aad ka dhawaajisay shanta farood ilaahay muslimin bani aadankana waa wada sidaa marka qof wuxuu leeyahay dabeecad u gooniya marka adigana waxaa lagaaga baahan yahay in aad qof walba wuxuu leeyahay dabeecadiisa inaad laqdido fiirisid wuxuu yahay kula dhaqantid waa hagaag bal saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay Covid 19 maadaama aad tihiin ganacsi aad abuurteen oo bicnaha shaaha aad karinayso 4 saacadood ka baxdaa bal xilliyadaas meeqa saac ka bixi jirtay aniga xilliyo waxa ka bixi jiray maxay ahayd oo duhuradii oo kale aniga waan ka dhamaa jiray laakiin hadda maadaama bandowgi batay oo waqtiga oo sii dheereen waa inaad ka faa'iideysataa oo waxay ahayd waqtiyadaas kale inaad ka sii faa'iideysataa sababtoo hal saac mar ahayd mar 4 saac ay ka dhigeen mar 2 saac ay ka dhigeen marka maadaama waqtigii oo aad u yar yahay waa inaad waqtigaaga sii fiirisaa ganacsiga sii wadid waqti fasax la qaato lama joogo corona joogo marka sidee is leedahay subaxii hore oo hal saac shaqada soo gashay ilaa fiidkii hore teebaad is leedahay ganacsiga aad u wanaagsan habeenkii waa dadka way soo waxay baxayaan oo waxay soo doonanayaan sheeko waxay soo doonaan dadka shaqada ka soo wada baxayaan meel ay ku wada sheekaystaan ay rabaan marka shaqada habeenii maalin habeenkii aad u badan وهاي هوشان ما أهان أتكو جرتد هوشان أتكو جرتد هذا ما أهان حرفت كلو أدوكو جار أما جرتو إسلام هو كوش قيسان كرتا معه حوجا هاد ولا تجمعتا دون كده واتكية وحقاد وبرتا waxaad u bartaa dhinaca makeup-ka isqurxiska dumarka ma sha Allah hadda ku biiray insha Allah waxaan rajeenayaa dhinacaas liiga soo raadi doono oo qaybta la u goy doono waa haduu Ilaahay igu sii saacideeyo marka taas ay isleedahay xirfadaas wala soo bixi doona iyadana macnaheeda goonideeda wadato laakiin waa xirfad yar oo aad u fiican isleeyahay hadda dumarkii oo dhan isqurxiska dhinacaas hadda loo wada batay marka dhinacaas hadda bartaa oo iskuulan dhigtaa إن شاء الله حرجينا نعسنا وبطل. وهاي هذا ما سنتهاي بعد STN وأيضا كوي مادي كوبت هذا شقة ده ودياشنا وينتوستونا إن شاء الله كوبت أديكو كشقين هاي كدبنا. سو قادين ده. قاد ميرزة داس. sida wanaagsan aad hooshii shaqada aad u wadatina inuu soo aragno runaantii bal gabaran dareenkaaga sidoo ah wallahi ma sha Allah dadka badana garbahayga joogay oo eegane waxay ahayd shaqeynaayo waxay ugu dhayn kaafiyo mu barnaamij aad duubaneysay oo dhinaca YouTube-ka iyo wax ma duubaneysay markaas ku irmayo idaacada soo booqatay way fiiriye xilay idaacad naga daaday kaafiyo ciyalka xaafadada idaacad ku soo booqanay camal way aamin waayeen ma sha Allah waa idinkaga mahad celinaya dad badan oo su'aalaha jirto waliba wiilal dhalinyaro oo dhinaca dambe taagnaayo shaa iga sugaayo waxay dhayn kaafiyo maanta waa mana qabsatay nina camera ka daawatay marka fil ina ku jishid shaa ma nool imaad ما أنا كور فيلد لكن بحاول أكون هاي برنامج إذا عاد وضعته ويأمن وهذا إذا عاد بحكي خبر سوريبا أسكو بدي شيء. هذه مركا أنت بدن بلشة ما حد كاش دي رجلي ما تكاش. والله ما شاء الله لنا عائلة تيك توك مركا هالفيديو صادقه ما شاء الله داد بدن وأصحابه إنك استغفره إلهي أسكو ميت كديجين وضدك قاركم من تيودو لا ما إسكهستان. maya wallahi horta dadkaas oo kale waa dad gurigooda jijiifo qof comment qaldan soo qoray marka aragto ana ahaa jiray hadda tema comment ku bixiya xataa ma hay sababtoo laakiin markayga hore waxa cunaye waa cabaye waa jiifay taleefankana shaqadeeda ahay marka dadkaas oo kale camal ma hayaan laakiin dadka camalka hayo waa dabeecad qurxoon yihiin dadka commentigeega soo bixinaya qaarkood waa dad boqolkiiba boqol shaqeeyo sida aniga aaminsana sababtoo markuu commentiga soo qoray naftiisa inuu ka hadlayo umaleesa wallahi commenti xalay aan ku dhafray insha Allah mar YouTube-keyga soo dhigi doona commenti ima yaqaan ana ma aqaan laakiin waa commenti aniga cajibi gariye
marka dadka isku mid maahan. وهاجاك هذا ما سنتها كافية ولي برنامج كمرتين وجاء أرمها هوين كرون هانتي سؤالك لدوبنا هل كان أي ويلان ما أنت ما شاء الله ونقوم هاد علنا يصير قروح ذا بدنا برنامج كي يقولوا وده كافية واحد تكون وش هاي مقالة تاني نيروبي وأنا ميل حالة ذا كلا دوبن تاي معنى كلا دوبن هاي آد مركا وحي كوغل يبقى بنا أردت أنت تكون ولد نيروبي مركا إنه كتجنا hawshan ganacsiga iyo TikTok iyo aalada dhanba waxa gaar ahaan adigoo socdo aad aragto kuugu yaabka badnaa inta aad halka joogto horta arimaha haweenka ina ii dhiibto horta hore xanuun eed gowdhe dhinaca haweenka wax igu su'aashay wallahi horta hore su'aal aad u fiican ay weydiisay maalin waxa dhacday anagoo wadada mareyno inaa arkay gabar aniga da'deeda aad uga sii yar oo oynayso xaamilana horta hore dadka Nairobi joogo isku dabeecad maahan maadaama wadankii laga soo wada tagay isku dareen maahan isku naxariis maahan isku qalbina maahan waxaan arkay gabar ooynayso anoo markaas soo gadoomay oo shaaha ka soo gadoomay oo koobab iyo wax doonay gabadhii u dhawaaday kulay waa weydiiyay waxa ku abaay macaanto sorry hadii ay arki doonto arinteedu inta ka sheegayo waa weydiiyay waxa Soomaali ku mahmaada ka banaageed ka bay isma dheero waa u tagay waxa ku abaay maxaa kugu dhacay oo la ilmeynaysa gabar yaraa tahay maxaa loo oynaysaa ma tacsiya ku gasho sababta qalbigeen waxa ku soo dhacaya waxay tahay inay tacsi qofka gashay marba qofka duu oynaa inay dhibaato haysato tacsi ay taalo sababta qofkaas oo kale dhibka ma filanaynin waxay ugu tiraha abaayo tacsi ima gelin meel baa wax ka sugaayay meeshiya waay bishana waa dhamaad guriga kiradiisa laga rabaa والله جسمي جوا اسبدلي وحكور أباي أورا ليه هاي سدي إيدي كرتا كسوحي وقتر ويل كان واكلة تكني لنا عاني سو أفريقيا أي يكونوا لي هاي تلفون يجوا قبوايه هرتورة مركي لك لا تجو هناك إنه كلا تجا في عن إن حمان تسوق له كلا تجا عادي وحنتاي وهاد وسيوة دي وحقري أنت دقنت هاي قبلها سنة قبل ودي وح استعمالها واشكية وحكون أبا أنت دقنت هاي نيروبي دقنا أصل كاي أنت كي ماده حمرة كي ماده قلتلي جورجا قلتلك يلا جورجا وراعي جورجا سو أركي وهكسو نماده هويا أو ماده هويا قبل ساسا سو أركي وأوينيسو أو ويراكون أنا حتى وإجيرته واقف يرسوي قشوسي وحيت لما نبكون في كل عكرة قف بين كليه صح قف يرنو كل عكرة قبل إيكان قبل يلا أو كاني كردي وحيا لا شوي وحيت أنا قبل واحد عليه بالجرجي يجي إمام جرجي جا شوي ساعة سيدي تجري وحلا جرا هذه سومالي هذا كنا شاي كبداس المركب وجدت هذا المركب لبعطوين ويقبسطها هذا هو يكجد بانو قلب جوده عاد وجرعان صح marka haweenka waxa leeyahay naag walba inuu qalbigeeda adkeysato wax walba inay la qado waa muhiim marka waxa kale aad u la yaabay waa hooyo ragga iyo dumarka isku calool maahan waxa agbar marayo wiilal hal qof ku lixdo weydiinaysa male marka shakiya ay galo waxa isri qofkan amu xoogaa yar oo waa ila qof wada ku oyday ma lahanay فهمتي marka dadka dumarka iyo ragga isku calool laakiin waxaad ogaatay gabadhaas in dhibaato ay hayso inay dhibaato haysato ee dhibaneed oo ilintaan had qof ilin dheedheel kuma yimaado ilinta inay ka keento xanuun qalbiga ay ka dareemayso marka dumarka dhibaato badan وهي هذا أمها سنتها كافية رناهانتي ما دام أنا جو برنامج كهوين كهو جرنا أنا قصة حنون كبدن أدينا لو ذاكتي أنا ما وجيب برنامج كهوين كإنا ود وبرنامج كهوين ما شاء الله وقدام بينا رناهانتي أبالك وجنت سميسي ما شاء الله كأول مري أديجي هو يبا رناهانتي وحد سميسي متوناك سدير جلين أيام ولدت هاي برناهانتي أديجي نفتين إن qof walba dumarka xitaa sida inta badan isku mid ma naxariis ahaan hadii si loo fiiriyo isku naxariis ma qaar laga yaabo inay dhahaan wax la ooynayso waa kibir laga yaabo marka sida aad adiga ugu leexatay inta badan lama helo waxa keeni karo qofka markuu qurbo ku nool yahay waa inuu ogaadaa dib walba inay qabsan karto xaaladda ay ku sugan tahay bari inay adigu qabsan karto waa inuu maskaxdiisa geliyaa waxa ka oysiinaya inaa ogaada le ugu leexda aad ma santa bal midii kuugu farxadda badna hadii aad inoo raaciso
farxad hoose yani wixii kuugu farxadka badnaa adigana haddii aad inoo raacay taa waa tii kuugu farxaddii igu horeysa waxay aalada tiktok aad u isticmaalaa maamo aad waa yeelo ayeeyadii camal ah ayaa intay igu soo leexatay waxay igu tiri hooyo istaag anoo tarmusyo wado waxa is iri barnaamijka goosii rabtaa waa u tagi waa weydiiyey hooyo maxaa kuu qabtaa si intee dhool cadaysa waxay igu tiri ilaahay dartiisa ku jeclahay wallaahi bilaa hadda ay istaagtay waa qoslo hooyo waxa ku intay igu aragtay markaas igu tiri ilmahayga tiktok isticmaalo marka wax soo dhigtid hooyo gabadha ii geeyaan dhahaa ما شاء الله مركو فرحت بتاعيدا وهجاج هذا ما تنتهي كافيه marka inuu ka tagna hawsha ganacsiga iyo waliba shaah karinta waxa tahay gabar isticmaasha baraha bulshada waana soo taabatay intaan barnaamijka hore su'aalaha hore aan ku jirnay gaar ahaan ee aalada tiktok ah bal taayada kormay kugu dhalatay faafahinaysa tiktok wiil yar oo walaalkay aad u jeclaa inuu isticmaalo markaas wuxuu dhahaa maanta leegayga halkaas soo maraa maanta commentigayga halkaas soo maraa markaas inta fishakuura qiimaha uu leeyahay tir badan waxaan hadda anigu kugula tartama ka warana ku uri aaladan soo adoo shaah shubaysa anigu kugula tartami kartid ciyaarta ka daabasha waxa ku iri anoo bay ka barsadin xalfadna aana aadin ayaa ku tusidahaa ina ka kumiti ha ina anoo shaah miirayo ina ka kumiti bato soo okay waa arki doonaa sidii habeenkii maalintii u duubay habeenkii guriga markaa tagay ayaa hurdada ka kiciyay kaca kuuriya arkumtigeega soo boodo wuxuu dhahay bismillaahi raxmaan waxaan kumitiisa ku heli kartaa markaas ku waa kaasa adiga xalfad iyo shaah leeyo baalki meela maanta aada iyo barraqda tirada ka budataa maanta fiida adigoo inta soo bilood ku furanay adigoo hadda maanta kaliya shaahigina anoo miiray ku jiro bal fiiri bal uu igu qosle wuxuu igu dhawaa iga badasa markii iga har saasaa markuu ku bartay kuna soo galay aalada tiktok jiraan aalada kale oo isticmaashay ha facebook aada facebook isticmaala youtube waad sheegtay waad leedahay ha youtube markii tiktok aan waxay ahayd galay ayaa dadka community waxay igu soo qorayaan adiga youtube lagaaga baahaya tiktok markaan galab waxay leeyahay kaafiyo talent yaa leedahay youtube lagaaga baahaya waa gartay sidii marka caana okay bal youtube waxa dhahay dadka caanka ah waxa la siiyaa waxay ahayd subscribe-ki waxaas tugsi bageli kariib ay gadaaftiin ganacsiga iga baahan markaas waxay ugu dheerbaya tiktok inta ka baxday youtube gal youtube guriga keenaysaa marka xagaas aan dan mar kale halkaas hadana isku dayay inaan isticmaalo waa hagaag aad oo maasan tahay waxaad isticmaashaa sida aynu soo sheegnay aalada tiktok oo anigu nasra ahaanba inta aan ka soo arkay halkaas oo iri alle leh gabadhan waa inaad bal wareesi aad ka samayso oo dareenaysa lugahaada waxa ahaatay marka waana kaaga mahadcelinahay sida quruxda badan aad ii ajiibtay iyo aqbashay runaantii in badan iyo in badan 100% marka muhiimadda aad halkaasi u gashay waxay ahayd inaad kamera dhaliso waxaan aragnaa inta badan asxaab fara badan oo dhibaatooyin kala kulanta aalada baraha bulshada aan iraahda marka taa ayada maxaa faahfaahinad inaga sii wallahi xalalkeeda way fara badhiin faa'iidooyinkana way fara badhiin wallahi dhibaato badan waa lagu qabaa sababtoo anoo ani iska shahleey oo shahwa oo waxay ahayd kaliya soo galiyo tiktok ayaa amaan gali la qof marka asagana oo caan sii intuu joogaa aalada hortooda aado qof waxa arkaysaa wiliga aacash wada cunin wajigiisa wajigeeda isku dhicin wili aada leef u arkin oo adduunka ku nacab waba ku nacab yahabo ma taqaanid komitiyada oo ku soo qoraya daa aragto waa yaabaysaa aqoon uma lihid oo qof maanta taqaanid oo ku dhihi karo okay qofka maxaa ka haleeyay ma ahan oo dadka waxay ahayd waxa ku jira dad aad u xun ebel waxa qabi jiray barnaamijna waa qabtay youtube-kayga ku jira dadka caanka ah maxay u dagaa meelaha fogfog wallahi dhibaato haysatay u dagaan aniga waa ogaaday sababtoo qof aad ku arkin hadda anigu ma aqaanin laakiin adaa iska baray oo barnaamijna iga leedahay ii sheegay inta goobteeda igu yimaadeen qof inta goobtaada kuugu imaado ku aflagaadeynaya wuxuu ku leeyahay tiktok ku jirtaa adoo saa u taalo gadaal isku fiirinay miyaarada tagay maxaa see u aalaa qofka waa inuu ogaado sidoo asaga yahay qofkii waxba kama aada haleen ma taqaanid bacay kartid oo wuxuu yahay ma taqaanid marka dhibaato badan lagu qabaa social media siba waxaad raacdaa commentiyada waxaa arkaysaa
qof aad aqoonin oo ku aflagaadeena baka firkaaga dambo kaala sheeg meel oo ka imaaday ma taqaanin comment oo kaliya laga yaabaa inuu ha inuu maanta ka arkay social media oo iska kaacayo waba iska ka nacaabo marka dhibaato badan ah social media taalo aad u dhib badan tahay bal kabar dhanka ay Facebook dhibaatooyinka yeela yaa sidii kana waxa sabab u arag iyo dumarka horta ragii dumarka isku mid maaha naagta waxaa laga yaabaa inay wax yar ka miseerto committee waraa soo qurxi iyo eriga qaldan ku soo qorto laakiin ninka ragga markuu committee ku soo qoraayo waxa moodaabo qoray lagugu taago wax meel adiga aad ogtaa lagugu dhufanayo inuu og yahaabo leeb uu kugu tuuraa faadaad wax aad ka haleesay malahan dumarkii raggan way u badan yihiin dad waxaa arkaysaa qof maanta committee aqrinaya committee aad beerka kaaga oysiiyo committee ka dambeeya waa committee adiga kaaga qosol siiyo oo qalbiga kaaga qaboobo marka ilaahay dadka saas ayuu ka dhigay Facebook iyo dhinaca kale aaladaha Facebook waa iska tirtiri kartaa oo qofkii blog saari kartaa dibdib buu ku soo raacayo laakiin aaladaha kale tood qofka asoo friend ahayn ku ayna TikTok hadday tahay YouTuber hadday tahay marka dadka caanka ah wallahi dhibaatadooda ma yaro waxaa leedahay qofka caanka muxuu lambarkiisa u xirtay qof aan lacag intuu ku soo shubto oo iska kacayna ma taqaan qofka wuxuu yahay sababta ku cayna ma taqaan marka hadii aad bulshada soo dhex gashid maxaa kugu dhici karo waa inaa naftaada u baqdaa marka dadka caanka dhibaatada yeesata dhibaatadaas hadduu fanaan yahay iyo hadduu youtuber yahay iyo hadduu tiktoker waxaa arkaysaa dad wadankoodii xaafadoodii inta ka guuray meelo kala degaayo cabsi ay cabsanayaan darteed marka waxaa leedahay dhibaatadiisa way fara badan tahay inta badanna waxaa jira muuqaalo ayadana dhanka iyo youtube-ka dhibaato intaa leeg ayadana way ka taagan tahay youtuberkii qof maanta iska faraxsan oo barnaamij soo duubtay war heedha hadduu ku anfaco barnaamijkayga iskaga baxa maxaa ana ii soo caynay su-aal waayo ani qofka kama helin waa ka tegayaa maxaa dhibkiisa iyo colaadiisa iyo qofaaba qoranayaba inaa maanta wax soo dhigtay in kale inuu ku caayo darteeda usoo galaya marka dadka isku mid maaha waa hagaag marka inta badan hadda waxaynu aragnaa qoysaska Soomaaliyeed inay ay ku sii burburayaan aalada internetka aan iraadna baraha bulshada dhibaato uga imaata awadeed marka taa ayada ahna inta badan qoysaskan burburay misdhii karna waa sabab u tahay maanta qofaa wax iga burburinay ma aaminsani sax sababtoo waxaan anaa qabsan karo anaana kansali karo maxaan ka hadlayaa qoyska meel wada degan oo reer wada degan meel wada degan waxa laga yaabaa gabadh inay isticmaalaysa aalad baraha bulshada isticmaalaysa sax wiilkiina uusan u rabin soo taas ayada markay gabadh dhahdo inay ka hor imaado ay dhahdo anigu ma raba inaan ka baxa social media wiilku uu yiraahdo de xaqa ugo aniga waan kaaga baxay guriga taas been baa way jirtaa barnaamijyadaas aad u bateen oo waxaa jira gabdho badan oo la qabo oo TikTok isticmaalo oo TikTok soo galo oo waxa ay to laakiin qofka waxa uga dhaafi kartaa oo uga deey kartaa dabeecadda ee leedahay marka adiga hanati xumaantana lasma tusiyo adoo istusina qofka ka jari kartaa qalbigaaga wanaagaaga aa uga jari kartaa way jirtaa wax amar ku taagleena madeyne hadaa qofka dhahan loofoo wixii ku noqonaa laakiin qofki markii adiga wixii aad xeeeed gudaha intaa ula sheegishid aad tiraahdo waxa manoo qurux badno waa laga yaabaa qofkii inuu ka jarmo way jiraa dad badan oo ku kala tagay aad u bateen waa hagaag aad u mahadsantahay gabagabadii barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay kaafi waana kaaga mahadcelinayaa bal baaq intee leeg ayaad u diraysaa dadka sida qaldan u isticmaala aalada internetka horta hor qofkaas oo kale waxaa dhihi lahaa camal has ku yeelo qofka markuu camal leeyahay oo waxuu ku mashquulo maskaxdiisa ay hayso ayuu iska dhaafi karaa xumaanta marka waxaa leeyahay asxaabta dhammaan qof walbo qalbigiisa intuu dib u raaco maxaa xun iyo maxaa san horta hore waxaa intaada suubin waxaa la weydiiyaa qalbiga ama maskaxda aa la su-aalaa marka qalbigaaga intaa la tashatid wixii wanaag oo adiga kula gudboonaada suubi dadna anfacay dadka wax adiga laga faa'iido maanta xasuus u ahaato umada hadii aad wax qaldan oo misan xun aad bas weligaa maba kaa baxaya meeshay kugu jiraa markaa suulayso maanta wax un kuu yeelo maanta dhan wuxuu ku yeelaa ani maanta haddii aan ka tago nolosha hadda aan ku jira ama shaqadeyda oo meel dheer maanta meel sare aan tago
waxaa la iga daba keenayaa bartii aan joogay waxaan waa kasoo gudbay oo waa tilaabsaday qofkaa ku xumeeyaa isdhehaysaa oo qofkaa uga daba tag laakiin qofkaa nolosha oo kasoo baxay waa nolol asaga kasoo baxay oo iskeenay meesha uu taagan yahay marka adiga ha iskeenini dib isku laaba adiga bal isa soo xisaabi waxaa arkaysaa qof kuusoo qoraayo markaa xalfadoo kale aado ilaa dumara ahay oo lidhoo kaafi maanta aroosaa lagaaga baahan yahay tiktokaa soo dhigaysaa meeshaad joogto maanta shaahiyaa kaa reeba shaahiyaa kaa reeba shaahiyaa kaa loo qababa inaad naf leedahay ka tilaabsan kartid aad ka tilaabsan kartid waa lagu soo qoraa waxaa lagu leeyahay fiiri maanta shaqadaada yaa kaa reebeen war ani shaqadeeda ay fari noloshayda waaye marka wax aniga noloshayda inaa i farto waxaa ka qurux badan maasha allah maanta abaayo waa faraxsan tahay xataa qofka niyadda inaad commenti yar aad soo qortid marka commentigaad soo qoraysa haddii faa'iide ee lahayn sister ama brother jeebka gasho iska heeso waxba ha qoribo qofka iska daawo ka gudub marka ma fahmi karo dadkii oo dhan miyaa wada noqday dhaqankan waxaa arkaysaa qof waqti isgeliyey labistay soo turgeeyey meel joogo loosoo cay loosoo qoraayo war qofkan muxuu galabsaday muxuu kaa galabsaday marka social media dad badan si qaldan u isticmaalayo waana micno badan yahay aad iyo aad waxaa waa dabeecado ku sii kala bara taasa bal baaqa kale maadaama barnaamijkeenu ku jirno arrimaha haweenka baaq intee la eg ay u dirleed haweenka gaar ahaan jecel inay shaqaystaan misna isle haddii aad shaqadan qabato ama ku guul dareysataa haddii aad shaqadan qabato ama lagu yiraahdaa dee waxaan shaqo ma ahanay maxaad u qabanaysaa marka kalsoonida ku yartahay aad isleedahay run ahaantii baaq intee la dirleed kaafi adigoo maanta ah hal abuur run ahaantii shaqo qurux badan la yimaaday shaqaysto inta badan aan isdhihi kara dee dad fara badan oo Nairobi ku nool aad ku yaqaana horta hore shaqada lagu sheegayo waxay ka soo go'daa qalbiga gabadha Soomaaliyeed markii ay gurigeeda ka soo baxdo markii horta dabeecadda rasmiga lagu sheegayo guriga markaa ku jirtid saygaaga waa ku qeyninee asagiyo daalan xeeto maanta dhan uu shaqeynaayo shaqo ku jiray adi fresh tahay waa cunaysay waa cabaysay guriga ku jirtay maskaxdaada waa fresh laakiin qofka markuu guriga soo galo wuu daalan yahay zaa'id u daalan yahay nasiin u baahan yahay hadal jircan u baahan yahay markii gabdhaha Soomaaliyeed siiba haweenka waxa leeyahay inta aad guriga joogtid waxaan ku dhiilayaa wax uun inaad qabato oo shaqeyso sababtoo ah ma dhacaysa markaas reer dumaayo hadda gaaladan oo kale odaygi waa baxa shaqo aada habarta way baxay shaqo aade guriga wada imaanayaan reerkii wada qabsanaya sababta dagaal ma imaan karo dabeecada dagaal ku imaado ma jirtabo laakiin qofka markuu fresh yahay wuxuu abaabulayaa wuxuu abaabulayaa dagaal وفهمتي إن كانوا كلوا دالن يهاي قف دالن واي هذا بدنا أني شاها عن شوها بدنا أني ما كان شاه وشوها أني من حاسس قوي ويسود دالي شقو كي إمادي دنيرو مش كل شيء كيسنايا إن تلافك سنة يصارنا جبكو كشنا وقت يجي شقة أو قصة بحي أيضا حساب سنتحي وهالكو أهلي أريد تدور صاحب ولا جوجا شاه لا عباية لا دو لا عيارة وحير أو قلبي جيسو كدك صدو دنيا ذي أو هلايا قولي ما أنت هدو هذا دجالك جوهرية ها وقت قال أقول سودي بدعاء يعني قفك إنه قف بني آدم هاي ما بحساب سما أو دنيا لك كرا أو قصلي كرا وحير رجي دمر كانوا ما بدن رجينا Soomaaliyeed inay guri ku jiraan inay banaanka aadaan xoogaa yar jibiga isoo badashtaan waxa si jecel yihiin marka waxa wareystay wiil xasle waxa ku iri maxaa kala kuntaa wuxuu yiri kaafiyoy abaayo waliba waxa nacay markii nagu ridayo guryaha joogana la yiri oo waxay bandoogi dhibaato badan aan oo imaado dhahay ani xaaski waqti yar ah heshiina laana waxaa ku iri sabab wuxuu yiri maanta dhan shaqaan joogaa hore waqtigii daqiiqadii shaqada aan ka soo bixino soo xireyno bartana waqtigii ku dhameeyaa hore gurigii marka aad dukaanka waqtigaas soo xirtay waaya banaanka ku joogtaa itaalo dhahay marka waxaan sii raadiyaa inta guriga sii socdo barnaamij aan guriga ku galo aan ku gali lahay ayaa sii qurxiyaa marka wallahi gabdhaha Soomaaliyeed waxa leeyahay gabaray hadii aad reerkaaga inuu ku dhismo hay ما في إنه كنترول كبدا نولش أكو بربرتو أديك عمل يلو صوت قفك مركو أسجع عمل يشو أيوة مركل كلام مشغولة شقادة والله وشيء قال يعني وحبك ما وجاجر شقادة وحيت هاي لكن مركي أنسو جودك عليه أيا واحد رمي دلقاتك إلى شقادة لا هاي
ay ku xiran tahay marka gabaray haddii aa banaan ku baxdo aa wax yar soo qabato soo shaqayso waxaad dareemaysaa inaad daalan tahay oo aad u baahan tahay hadal jircan aad u baahan tahay naxariis marka isla saas ayuu ugu baahan yahay ninka ragaana ma fahanteen maxay ahayd marka waxaa idin leeyahay gabdho banaanka shaqada ayaa idinku oga aniga xataa haddaan mustaqbal yeesho waxaan rajeynaya inaan shaqeeyo ha waxaa lagu leeyahay ilmaha haynaa ilmahana sugaysa u shaqeynaa shaqada ilmaha ma aragtay ajaanibtan oo dhan way shaqeeyaan ilmahooda intay geeyaan dhaqanka bay ka halaabaan waa maya waa waxa anaga isku boorgaraamina dumarka soomaaliyeed wax walbaa la qaban karaa haddana aabihii aabala-aan markuu cunugeeya adu waa shaqeysaaye markuu ninka joogo maxaad u shaqeynin waa su-aal mogtahay maxaa ilmihii may dayacmaan laakiin shaqada mar walbo lagula joogo ha lagaa maqnaado way qurux badan tahay aad iyo aad inaad hal qof oo bini aadan aad isku halayso waa laga fiican aad kala tegi kartaa waa laga fiican marka waxa wanaagsan inaad hadhow aad baraarugto wanaagsan inaad hadda baraarugto aad iyo aad inaad hal qof aadan isku halaynin oo biri haddaad qofkan weyda gabadhaada kugu dayanayso maanta marka adiga shaqaysid oo wax qabatid gabadhaada kugu dayanayso gabadhaada biri gabadheeda ku dayanayso marka nolosha saas qurux badan si qurux badan qoyskooda u dhisteen aad u mahadsan tahay kaafi intaas ayayna barnaamijka ku soo afmeerina waana kaaga mahadcelinahay sida quruxda badan aad barnaamijka aad igala qayb qaadatay waa kaafi cabdi oo ah gabar hal abuur run ahaantii shahna ku karisa magaalada tan Nairobi inta badan aalada Facebook aan iraahdo baraha bulshada gaar ahaan TikTok aad iyo aad run ahaantii looga hadalhayo waxyaabo dhiirigelin soo dhigtay inta aniga ka arkay kaafiyo adiga waxaan soo dhigayo ma arkin adiga shaqadaada ku jiro si qurux badan hawshaada aad u wadato run ahaantii inta badan waxaan kuugu jeclaaday dhiirigelinta aad gabdhaha aad hawada aad u mariso aad tusto inaad shaqaysanayso misna ay tahay shaqada wax wanaagsan aad u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa 100% sida quruxda badan aad inooga soo booqatay studio-ha STN magaalada tan Nairobi shalaytan aynu ku booqanay goobteeda shaqada sida ay hawsha u kala wadaan halkaasi aynu ku soo aragnay sida quruxda badan waynu ku dhiirigelinaynaa gabar walba oo jecel inay ka shaqaysato run ahaantii intay nooshahay inay shaqaysato jecel inay horumar gaartanayno jecelna barnaamijkan waxaynu ku soo artiqaadnaa xilli walbaba cid walba horumar ka gaartay arrimaha bulshada aan iraahdo arrimaha haweenka horumarka ku gaaray arrimaha haweenka iyo sidoo kale wax walba lead ku ah horumarka dumarka Soomaaliyeed dumarka aynu ka wareysan karnana aynu barnaamijka ku soo martiqaadnaa barnaamijka waxaa kaamiradiisa iyo dhanka farsamada gacanta iyo ku hayay Maxamed Ciise anigoo Nasr Maxamuud Ciise ah ayaan barnaamijka soo diyaariyay halkaan idin kala socodsiinay waxaana martii u ahayd Kaafiye Cabdiyaan sida horeba idinku ugu sheegay aad iyo u mahadsan dhamaantooda isku duuban waxaan idin kaaga tageynaa anagoo waliba isku duuban sida iyo amaana Allah